samafale nimcaali ismaaciil oo ka mid ah hablaha dhallinyarada ah reer burco ayaa u qaybisay 27 carruur ah oo isugu jira agoon iyo danyara dharkii ciidka oo kulankani lagu guddoonsiinayay carruurtani dharkan ciidda ayaa waxaa ka hadlay samafale nimcaali ismaaciil iyo sidoo kale qaar ka mid ah culimadii hawshani la waday. wuxuu ka yimid walaalo muxsiniina oo isku daray mid 2 agoon ciidsiiyey, mid 3 ciidsiiyey, mid 4 ciidsiiyey, mid 5 ciidsiiyey, mid 6 ciidsiiyey, mid qura iibsiiyey, qof iyo kartidii waxay isugu jiraan hablaye inamo 27 qof oo agoona ayaa maanta halka lagu iidsiinaya. runtii wax yar maaha marka dhinac laga eego agoonta magaalada joogta iyo baahideeda marka laga eegana dhibic kama aha, laakiin waxaynu leenahay inagu de wixii Ilaahay nagu ogaayay naloo soo dhiibay ee nimco lagu soo hagaajiyay anaguna aanu kala qayb qaadanayna ayuun baanu halkan ka qaybinaynaa. dhalinyarta xaafadiina degan ee agoonta inaan ka wada farxino lana faraxno marka iyaga ka farxinayno inaguna way la farxayna. dadka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u gartay maanta inay ka farxiyaana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan u weydiinaynaa in maalinka iyaguna farxadda u baahan yihiin in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka farxiyo. sidoo kale waxaan runtii aad u boorinaynaa waxa weeye barnaamijyada noocaas oo kale in la badiyo oo dadku imaka inantaasi waa inan kulli marka leeyahay waa inan dhalinyara kartida inta leeg bay qabatay inaguna laftigeenu hadaynu jeebkeena ka ururino ka badan baan qaban karnaa. maal badan aniga igama gelin, laakiin inaan fikirka keeno dadkeena agoonta ah iyo dadkeena danyarta ah ee aan awoodin farxadda ciida ayaan waxaan tusayay dadkeena haysta ubadkooda inay ku ciidsiiyeen in ka badanba. tusaalena waxa igu filan hooyaan hay ilmo yar baan haystaa kow maalinka Ramadaan bilaabatay waxaan ka fikiray ilmahaaga maryo noocee ayuu ku ciidi doonaa. taa ilmahayga markaan ka fikiray waxaan dareemayaa inay jiraan ilmayaal fara badan oo aabayaashood xay ahayn oo maanta u baahan inay dareemaan farxadda ah iyo inay ciidsiinaya. hooyadu kama badiso quudkooda ilmahaagoona duruufta lagu soo koriyaa waa duruuf aad u adag. Ilaahay inta aabayaashood dhintaan ha u naxariisto, innagana ha inooga daba naxariisto. intoona aabayaashood nool yahayna kulli iyaguna maalmaha ka mid ay tagayaan Ilaahay inta joogan caafimaad iyo cimri dherer iyo cibaado suuban ha inoogu daayo. waxay igala qayb qaatay barnaamijkan walaal muxsina hortu oo aad u qiimo badan. walaalkaasi ma jecla magaciisa in la xuso, laakiin waa abul khayr buu la yiraahdaa. Sweden ayuu ku sugan yahay. walaalka aad baan ugu duceynayaa. culimadana waliba waxaan ka codsanayaa inay si gaar ugu duceeyaan in Ilaahay maalkii awlaadiyo ubadkaba uu barakeeyo. idinkuna inaad aaminta ugu dartaan baan jecelahay. waa maalin Ramadaan waan soomanahay. meheradaha igala qayb qaatay waxa kamid ah iyaguna meherada Carwo Rooble, Carwo Salaama Fashion Style, Carwo Baraka Store oo yuna bakhaar mawaaridle ah, Carwo Bilic Dumar. waxa jirta dad iyaguna waqti fara badan ila geliyay ama igula dadaalay in aan barnaamijkan isu keeno. ugu horeeyo macallinkayga Axmed Xale, Ilaahay khayr iyo xasanaadaas uu qofkii kaliya tahay barnaamijka markaan soo bandhigay igu dhiiriyay inaan qaban karo tusay waqti calaashan dadaal fara badan oo diiniyana igeliyay oo inaanan ka daalin igu buurniyay marba marka dambeysana ila socday xaaladayda halka ku sugan tahay iyadoo waqtiyada qaar uu waqtigiisa ii huraayay oo iba raacayay. isagana waxa la Ilaahay miisaanka xasanaadka ku saaro. halkan waxaan ku ciidin doonaa 27 carruura, 24 kamid ay yihiin agoon, 3 carruur ay kamid ay yihiin carruur aan aabayaashood u awoodin inay ciidsiiyaan, hooyadina ka awood badisay xaaladii intii iyada ay u karaysay. waa fahmi kay saxarsi Bulsha TV Burco.